qaraxyo mataanaha ayaa maanta ka dhacay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxay qaraxyadan oo daqiiqado kala dambeeyay ee ka kala dhaceen agagaarka siidka iyo kiiloomitir 4 qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska siidka goob ay ku sugnaayeen ciidanka madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga ilaaliyo xarunta golaha shacabka waxaana qaraxaasi loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay goobta uu qaraxan ka dhacay ayaa ahayd meel aad u mashquul badan waxaana isticmaalaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya waxa sidoo kale halkaasi ku yaala wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha sidoo kale xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa halkaasi ku yaala oo isla xilligaasi uu ka socday shirka caadiga ee golaha shacabka sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal qaraxa ayaa la sheegay inuu dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac goobtan ayaa horay dhowr jeer waxa uga dhacay qaraxyo ciidan oo kala ah waxaana sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab qarax labaad ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka kiiloomitir 4 waxaana loo adeegsaday gaari noociisu yahay nooha qalin ah waxaana ciidamada amniga ay sheegeen inay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan darawalkii waday gaarigaasi qarxay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyo Guuto Sikiya ayaa barteeda Facebook waxay ku soo qortay in lagu guuleysay qaraxi dambe ruuxii waday in gacanta ay ku dhigeen lama amniga guud u cadaalada loo keeni doono